سؤال هذا خيارت سؤال هذا ذات فرصة محمد من الشيء سلام الله تكاداتنا يا أحمد على السؤال هذا برنامج كينات سي أبا قاعد دونا إن شاء الله برنامج كالا شير قرأي إن شاء الله برنامج كينا عاو كل يهي ciyaarta la soo dhawaado barnaamijkeena hadaata xoogaa waxaa waaye waa tacalumkumaana dhashay hadda insha allah barnaamijkeena amba qaadan doonaa caawa nin siyaasi oo deegaankaasi kasoo jeeda oo kismaayo jooga ayaa barnaamijka marti noogu ah isagaa wixii ugu dambeeyey deegaankaasi ka socdo waa la socdaa xilli danbaa ka hadlaysa waxa waaye qofa hadda kismaayo joogo khadka online ah isagaa wixii barnaamij ugu dambeeyey insha allah inaan la socodsiin doono barnaamijka sheer hala dhaho insha allah أجو أنا مش عارف aad ku maqlaa walaalkay gacal aad baana ku salaamaya هو برنامج كبير حوالي رسول الله بلاني كنت أحمد دم إيتاي حواي أدينا نالين نجمع فوق كل دم بيدفتي على صوت خيارت سودا هذا برنامج كان يدتنا أحمد نديم بلاون دونا من سياسي وعانو ديجان كاسي كسو جيدو دريانا يا مطلنا هو وما يكون سوغن بركة برنامج إن شاء الله شير على الله دقيقة كدي بيان بلاون دونا سياسي كلو دائرة برنامج وكسماية كفوغنا برنامج مطلنا هو برنامج كشير على الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرت سودا وهذا دمانتي سودا وهذا وبتاعي هذا واحد معي برنامج كأنه هدات ونجا كلا ضعي أو علاد حاجة فسمان مركب كوني كوجي على النقطة وأنا صعنا إن ده فلان حل الدم بتاعي غير سوامالي حل الدم بتاعي ده كان جو خطبها محل يوروبيو ده كان يوروبيو كده حل الدم بتاعي يا جنا ده كبير شقة يوم حل وكلا يا ماني بس معهن marka siyaasigan xaajo maxaa dhahayo xasan nuur oo maxaa dhahayo ka soo jeeda deegaanka haddana sugan magaalada Kismaayo
ayaa caawa barnaamijka marti noogu ah isagaa deegaanka wixii ugu dambeeyey macluumaada meesha ka jira isagaa faahfaahin naga siin doona insha allah iyo xaaladda guud ee jubbooyinka waxa ka jiro dhan xagga siyaasad xag waxaan dhan ninkaana faahfaahin naga siin doona siyaasigan xaajo xasan nuur xaajib soo dhawow waxa waaye akhyaar badan aan barnaamij ku jirto horta dadka kanaan waa dhowaa walaalkay kalgacal aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa xiriirka aad nala soo samaysay oo mar walbaba aad jeceshahay in dadka deegaanka ah xaalkooda ogaato iyo aad baa kaaga mahad celinayaa waana ku mahadsan tahay xiriirka aad nala soo samaysay xaajo soo dhawow waxa waaye waxaan rajaynayaa inkastoo aan ognahay meesha ku sugan tahay inay kismaayo tahay inkastoo aan ognahay in maxaa la hayto dee meel ay dhibaato badan ka jiraan inay iska tahay bal ka warranta xaaladii ugu dambeysay deegaanka guud mar yar oo kooban inoogu sameey macnaa dagaalada hadda allah jamaama ka dhacayay ereyada jilib iyo inkastoo dadka media macluumaadka inta badan la iska wada ogyahay haddana wax yar wixii aad nooga taaban karta maadaama adiga ilaahay aad ku sugan tahay aad nooga macluumaad badan tahay horta soomaalidu waxay tidhaahdaa war la qabo xiise ma lahan arrimaha kismaayo waxaa moodaa hadda dadka inta badan in ay xogogaal ka yihiin kismaayo horta niyo xaalad waxaa ka jirto aad iyo aad u cakirin macnaha jabahaddii hore ee meeshii joogtay ayaa dhowr firqo u kala baxday meeshaas waxaa isku haysto jabhaddii waagi hore dowladda kenya oo danaha gaarkaa soomaaliya ka lahayd ee meesha keentay iyo shakhsiyaadkii danaha ka lahaay ayagana dowladda kenya waagaas sidii ay ku bilaabatay soomaaliya oo dhanna way og tahay adigana waa og tahay meeshaas niyo horta weligeed maamul lagama dhisin oo wax maamul ah kama jiro waxaa ka jiro shakhsiyaad dana gaaraa leh iyo dowladda kenya oo dan gaaraa leh iyo dowladdii tigreydii hore oo dhacday oo dan gaaraa lahayd barnaamijyo ay ku heshiyeen oo qandaraas ah ayaa kismaayo ka jiray qandaraaskiyaana artiyo dhowr firqo yeeshe ee u dhaho ama maamul horta meesha kama jiro walaal maamulkaas iyo barnaamijkiisa hadda ha ii dambeeyo xaajo xasan nuur waxaan rabaa keliya inaad hadda faahfaahin yar naga siiso annagoogina waqtiga aad u yar yahay waxaad macluumaad niyo arrimahan oo horta jamaame sida wararkay nugu soo gaareen ciidamo macnaha maamulkan axmed madoobe ka xanaaqay ka goosteen ayay ahaayeen ka goosteen ee u dulqaadiyo isir faquuq waa lagu hayaa oo macnaha labada wiil madoobe isla ah wiilka dadka deegaanka mushahar ma qaato laakiin midkii axmed madoobe la yimid oo axmed madoobe xulufadiisa ah kolley noloshiisa wuu helaa si walba oo ku helo noocaasay ka goosteen meeshaasayna dagaal ku galeen dadna wuu ka dhintay markii kolley xaalka waxaa u malaynayaa inaan la socodkaasna waxaa jeclaan lahaa jamaamo weydiiso iyo meeshii ay ku dabaal annaga rabna wixii macluumaad ugu dambeeyay inuu siiyo laakiin waxaa moodaa xoogaa inuu iska maxaa lahayd daaranayo meesha aad joogto kismaayo maamulaa ka jiro maxaa lahayd oo axmed madoobe madax u yahay dad badanna maamulkaas inuu sharci yahay ku sheegaan dad badanna maamulkaas sharci maayna yidhahdaan aragti ahaan dadkiina meesha joogo adiga aad siyaasi aad maxaa lahayd meesha ka tahay maxaa qabtaa maamulka inuu maamul sharciga yahay mise inuusan maamul sharciga ahayn aragti ahaantiina
maadaama dadkii deegaanka meesha jooga aad hormuud u tahay. maya annagu maba aaminsaninba in meeshaas maamul ka jiro ka deegaan ahaan horena ma uu aaminsanaynin haddana ma aaminsanin annagu waxaan aaminsanahay nin oo hogaamiye kooxeed ah iyo dowladda kenya oo soomaaliya inay baddeeda qaadata rabta inay kismaayo haystaan aan ognahay kismaayo ankee dadka jooga dad soomaaliya ma aha kismaayo dowladda kenya haysato oo dana gaar ee ka leh ma lagu tilmaami karo ankee hogaamiye kooxeed oo soomaaliya jooga ankee ma dhihi karno waxaa joogo dad dowladda kenya u shaqeeya kismaayo joogo wax maamul la yidhaaha annagoo ka deegaan ahaan uma aqoonsanin waayo ma uu aqoonsan karnaba kismaaye macnaha nidaamka meeshaas ka jiro dadka deegaanka ah weligood lagama qayb gelin lagama tala gelin barnaamijkan barnaamij nairobi lagu soo sameeyo ahaaye dastuurka meesha ka jirana guri islii ku yaalla lagu soo sameeyey hal qabaa'ilaana soo samaystay hadda dadka deegaankaana gacalow waa og tahay oo meesha aa ku dhalatay waaye kismaayo waxaa degan qabaa'ilo badan oo soomaaliya deg qabaa'iladaas qabaa'il laga tala geliyey ma jirto shakhsiyaad waa jiraan oo ayaga danley ah oo ayaga macnaha shakhsiyaad gruubka xulufada axmed madoobe shakhsiyaad waa jiraan ayaga la qaraabto laakiin dadka deegaanka barnaamijkan barnaamij oo macnaha marka horen laga talageliye maahan ilaa waqti xadarkan lagama talagelin barnaamijkaas waa barnaamij qabaa'il u gaar ah iyo xulufo axmed madoobe iyo xulufadiisa u gaar yihiin ee wax maamul la yidhaha meeshaas kama jirin adeer okay dhibaatada dadka maamulkaas uu ku haayo gruubka axmedow dhibaatada dadka deegaanka ay ku hayaan wax faahfaahin ah ma naga siin karta maadaama aad nooga xoggaarsan tahay lamaba soo koobi karaba lama soo koobi karo dhibaatada dadka lagu haayo waxaa kow ka ah waagi hore dadka jubbooyinka degan way isgarab degi jireen horta leesma dul saarnaa jira 10 sano u dambeysay dadka jubbooyinka degan dadaa lasoo dul saaray nin walba gurigiisa waxaa reer kalaa lasoo dul saaray ninkii goof lahay goofkiisa waa laga qaaday nin kale looga qaaday kii guri lahayna gurigiisa waa looga qaaday nin kale looga qaaday kii dalaal ahay dalaalka waa looga qaaday mid kale looga qaaday lama soo koobi karo culayska meesha ka jiro iyo dhibaatooyinka ka jiraan hadday tahay dhulboob hadday tahay dil hadday tahay caburin oo wax xorriyatulqool la yidhaha meesha kama jiro aniga waxaa ku dhashay magaalada kismaaye 10 sano ma tegin sitmaanka hadda lasoo dhaafiyaa haddeer tegey haddeer waqti xadarkan aan kula hadlaayana ma ihi nin xur ah qof xur ahna kismaaye ma joogto oo dadka deegaanka ah wax xur ah kuma ahan kismaaye waxay ku joogaan saacaddan xaalka muxuu noqon doonaa kismaayo ognaa waxaa sii joogi karnana ma ahan hadda caawa kula hadlayana magaalada gudaheeda ma joogiyo waxaa joogaa magaalada meel afkeeda hore ah oo baadiyaha xigtaa jooga marka meeshaas wax amni ah oo maamulna kama jiro dadka deegaankana nuuc walbaa la iskugu daray xaqiraad hadday tahay hadday dil tahay hadday boob tahay wax loo dhaafay oo u badbaaday ma jirto laakiin dad badan oo maxaan dhahaaya tubaalkii oo siyaasiyiina rag badan oo rugacdaaya oo maxaan dhahaaya madaxweyneyaal hore soo noqday rag badana maamulkan axmed madoobe u hambaliyeeyey oo yidhi maxaa dhahaaya maamul sax waaye waad ogtahay shariifka isagoo aad rabo ayaa laga celiyey inuu axmed madoobe caleemasaarkiisa ka qayb galo adiga gaar ahaan dadka deegaankaasi ka soo jeedo oo shariifkii dadka ku heybta ahaatay ninkaan ku leeyahay macnaheed hawiyaad isla tihiin hiraabaad isla tihiin marka ma isleedihiin aragti ama qabtiin maadaama adu maanta nin sheeqaanaad tahay oo deegaankaasi ka soo jeedo oo shariifkii gruubkooda aad hawiye iyo hiraab isla tihiin ugu yaraan dadkan dee yani arrimihiina iyo wax dad u damqanayo soomaha maxaa dadka deegaankaas degan iyo sheeqaasha deegaankaas degan aragtidan siyaasiyiintan aysan qabin oo ayaga keligood ay qabaan maxaa waaye soo dad badan isma dhihi karaan
gacalo aad iyo aadaa u mahadsantaha waxaa kaaga mahad celinaaba su-aasha ay u weydiisay iyo sida aa ugu baahnayba su-aasha inay i weydiiso in adeer nimanka siyaasiyiinta ah anagu hadda aa isku heebtanahay oo hadda aa adiga ka dhawaajisay iska daa beelaha ayaga ee matalaan iska daa horta waayahan dambe waxaa caado iska noqotay oo soomaalida caado ka noqotay ninka siyaasiga ah inuu kalsoonida ka raadiyo ninka qabqablaha ah oo xaqiro dadka shacabka ah in la xaqiro waayahan dambe horta caado iska noqotay haddana kuma sii jiraan shakhsiyaadkan hadda ka dhawaajisay madaxda heer madaxweyne soo mareen iyo xildhibaanada iyo gruubkan hadda xisbiyada madaxda ka ah shacabna uma naxaan deegaanna uma naxaan dadna uma naxaan duunyana uma naxaan wax ay u naxaan qabaa'il oo ayaga u gaar ahoo ayaga isxigaan oo ayaga ay matalaan uma naxaan marka aniga waxaa dhihi karaa siyaasiyiintaas waa dad macnaha horta markaa kala qaado shariif sheekh axmed ninkii la yidhahaya xasan sheekh maxamuud horta aniga waa kala qaadaya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo fiqi iyo waa kala qaadayaa shariif sheekh axmed annagu ka deegaan ahaan waxaa ku faani jirnay 10 sano lasoo dhaafay shariifka in uu yahay ninka badbaado lahay jubbooyinka inuu yahay ayaa aaminsanaynay taasna waxaa ku aaminay waaga hore ciidamada kenya dalka ay soo galayeen ayuu shariifka wuxuu macnaha idaacadaha ka sheegay dowladda kenya dalkayga ha ka laabato annagu marka annagoo taas ka duuleyno ayaa mar walba waxaa aaminsanaynay shariif sheekh axmed inuu yahay shaksi haddii xilka uu ku soo laabto rajo weyn aa ka qabnay ayuu ahaaye waa isku naxnay markii aan maqalnay xisbigii shariif hogaaminayay ayaa axmed madoobe doorashadiisa taageeray markaa maqalnay dadka degan jubbooyinka waxay ku noqotay arrin filawaa ah oo la yaab ah oo arrin mucjiso ah ay ka noqotay marka shariif sheekh axmed horta ninka la dhaho macnaha taariikhdiisa macnaha dib ay ka xumaatay waxaana dhihi lahay shariif arrintaas raaligelin ha ka bixiyo oo baljaasna ha ka siiyo dadka degan labada jubbo iyo gado waayo waxaa ka aaminsanayna nin sheikh ah oo diinta islaamka yaqaano ku fiican arrimaha soomaalinimada ku fiican ayaa aaminsanaynay laakiin markuu yidhi axmed madoobe caano ku soo shubaa oo asigoo eeraboorka taagan la yidhi ma dhaqaaqi karti oo asigana ku doodaya axmedaa u tegaa caano ku shubaa macnaha uu sacbanaa garab istaagaa shariif markuu sheegay shariif annagu halkaas waxaa ka filinayna ma aha shariif waxaa leeyahay hadduu codkayga maqlo annagu haddaan nahay dadka deegaanka ah ee labada jubbo iyo gado degan shariif waxaa ka sugaynaa raaligelin ayaa ka sugaynaa shariif halkaasaa ugu baxaya ninka la yidhaaha xasan sheekh maxamuud horta geedda la yidhaaho dekanada horta ma duugowdo soomaalida waxay tidhahaa qaanna ma quruntay dhadaa nimanka siyaasiyiinta ah hadda xil raadiska ah oo saddexdii xisbina shariif hogaamiyo midna xasan sheekh maxamuud hogaamiyo midna ina cabdishakuur hogaamiyo caawa waxaa macnaha codkayga hadday dhegaystaan waxaa u sheegayaa ayaga waxay u taagan yihiin dadka jubbooyinka iyo gado degan in ay cod ka helaan ayay horta axmed madoobe u taageerayeen sida siyaasaddooda iyo caqligooda oo tusay laakiin macnaha cod ay ka helaan iska daaye macnaha taariikhdooda ciyaalka dhala doona kee meela loogu qori doonaa xasan sheekh maxamuud tookadii hore qoladan meesha ay qabsatay jabhadda ah waxaa lagu ogolaysiiyey xilkaa ku soo noqonaysahay axmed madoobe ongolaaw ayaa laga dhaadhiciyey barnaamijkaasna faroole iyo in cabdirashiid iyo dad waaweynah macnaha qayb ka qaatay xasan sheekh maxamuud waxaa laga dhaadhiciyey haddii axmed madoobe aa ogolaato xilkaa ku soo laabanaysaa axmed madoobe ku ogolaado xilka wuu ku soo laaban waayey ayuu weli
ku soco codkaaga ma hayno maalin codka waa ka baxday walba qodobka oo ka hadlo qodobka 21 oo xasan sheekh maxamuud mar walba ka hadlo horta caawo golaha baarlamaanka ee sharci dejinta Soomaaliya waxaa leeyahay qodobkaas oo 21aad oo xasan sheekh maxamuud laba mar ku celiyay haddii oo dastuurka Soomaaliya ka mid yahay qodobka haddii oo sheegaya in Axmed Madoobe iyo nuuciisa kale caano lagu soo shubi karo ama la soo garab istaagi karo ama la isku soo sabiri karo hadduu sheegayo qodobkaas 21aad dastuurka Soomaaliya ha laga saaraa dhihi lahaa waxaana ku sababeynaa Axmed Madoobe oo aan ognahay deegaanka dhibaatada u geystay dadka deegaanka dhibaatada u geystay hooyooyinka iyo waalidiinta dhibaatada u geystay iyo xaquuqul dadka maatada ah ee dadka jilacsan dhibaatada u geystay aan ognahay haddii macnaha qodobka 21aad oo sheegayo in caano lagu soo shubi karo qolada sharciinta horta waxaa leeyahay qodobkaas ha ka saaraan dastuurka Soomaaliya sababtoo ah Soomaaliya wadan uma bahayaba qodobka dastuuriga waxaa la rabaa inuu qof walba muwaadin ah ka turjumi karo oo aniga turjumi karo adna ka turjumi karo gabadha waama joogtana ka turjumi karo gabadha loowi cadda joogtana ka turjumi karaya dastuurka Soomaaliya ma aaminsaneen aniga dastuurka Soomaaliya inuu ka mid yahay qodob Axmed Madoobe lagu taageeri karo horta qodobkaas qolada sharci dejinta uu sheegaa haddii oo jiro waxaa leeyahay laga saaro dastuurka Soomaaliya laakiin ma aaminsan in oo jiro qodobkaas xasan sheekh maxamuud oo laba mar ku celceliyay xasan sheekh maxamuud iyo qolooyinka rabaan inay Kismaayo cod ka helaan caawo hal macnaha miitaala u sheegaya halkaas miitaal haddii ku qanci waayaanna weligood ma qancaya waxay ka mid yihiin dadka aniga ee hadda isku heebtanahay ayay ka mid yihiin saddexda xisbi ee rabaan inay Kismaayo xil ka helaan xilka Kismaayo ay ka sugayaan horta waa geeli indha badan ahaaye xilkii aadan cabdulle cismaan xilliga oo madaxweynaha ahaaye ayaa waxaa dhacday laba beeloo Soomaaliya isdishay markay isdileen dowladdii aadan cadde waxay samaysay beel labada beeloo isdishay beel ka mid ah 10,000 oo geel ah laga soo qaaday geela waxaa la keenay beledweyne xeraa loo sameeyey geela waa la xaraas geelaas waxaa loo bixiyey idha badanaa lahaa idha badan Soomaaliya oo dhan waa taqaanaa maamaayadaas xasan sheekh maxamuud iyo shariifka iyo cabdishakuur ayaana macnaha waxaa rabaa inay ku miitaal qaataan 10na ku qaataan caaw geelaas indha badanaa la dhihi jiray geela baaho gaaje geela meelaa lagu xareeyey waa lagu xaraasay laba xildhibaan oo aadan cabdulle cismaan ee isku heeb ahaayeen oo la kala dhihi jiray cali jimcaale iyo xaaji faarax la dhihi jiray ayaa waxay u tageen madaxweynihii hore ee aadan cabdulle cismaan waxay ku yidheen madaxweyne waxaa kuugu imaanay geelaan 20,000 oo qoysa ku nooleed waxaa kuugu imaanay geelaan halkan beledweyne ku baaba'ay geelaan qabiilkii wax laga dilin xaqoo lahaay ka sii wixii kalena dadkii lahaay u celi geelaan 20,000 oo qoysa ku nooleed aadan cabdulle cismaan waa nina aniga ixtiraam u haayo oo madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ma ahan mida asaga ku naceynaya ma ahan laakiin waxaa rabaa inaan wax ku tusaaleeyo qolooyinkan hadda rabo inay Kismaayo cod ka helaan markaasuu ku yidhi wasiirka ayaa geelaa saxiixay anigu ma farageshi kari geelaa wasiirkaa saxiixo dha wasiirka arrimaha gudaha saxiixoy aadan cabdulle cismaan waqtigii yaa u dhammaaday wuxuu soo istaagay doorasho cabdirashiid cali sharmaarkii asaa isla soo istaageen markay isla soo istaageen codkii la tiriyey ayaa lahay cabdirashiid cali sharmaark wuxuu maraa codka intaas aadan cabdulle cismaan wuxuu maraa codka intaas bareeja ayagoo ah ayaa xaaji faarax iyo cali jimcaale ayaa dhinaayeen markaasoo soo boodeen labadii xildhibaan ayay asaga ku heebta ahaayeen ee hadda ka hor u tegi jiray ee codeeyeen waxayna u codeeyeen cabdirashiid cali sharmaark markaasoo weli cali jimcaale iyo xaaji faarax waxay ku yidheen aadan cabdulle cidda aan u codeynoon annaga iyo adiga mar horaa ka ballannay dheh
سفيع aadan cabdulle cismaan wuxuu ku waayey madaxweynenimadiisa codka cali jimcaale xaaji faarax wuxuu ku waayey سفيع xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed haddii raaligelin ay ka bixi waayaan xaalna ka bixi waayaan labada jubbe iyo gedad dadka deggan ee xaalna sii waayaan raaligelin deg degana ay ka bixi waayaan madaxweynenimada ay sugayaan horta geela idha badan oo ka yahay سفيع macnaha geela indha badan ahaaye aadan cabdulle cismaan siduu xilka ugu waayey ayay ayagana codkooda ugu waayi doonaan labada jubbe iyo geda dadka deggan wax codaa kama heli doonaan weli jaanis ay haystaan shariif sheekh axmed iyo ina cabdishakuur iyo fiqi iyo xasan sheekh maxamuud saddexdooda afartooda horta waxaa leeyahay marka u horeyso dadka aniga ku heebtahay oo ayagana ay ka soo jeedaan waxaa leeyahay haddii oo beesha ayay ka soo jeedaan hadduu nabadoon leeyahay iyo hadduu culimaudiin leeyahay iyo waxgarad hadduu leeyahay waxaa ka nahay nimankaas dacwaa ka nahay haddaan nahay dadka jubbooyinka degan sbeshal beesha ayay ka soo jeedaan aniga ka soo jeedaa waxaana ka ahayd dacwo anigoo ku hadlaya afka dadka deegaanka ah imaamka iyo reerka hawiil yidhi hadduu ugaas leeyahay iyo hadduu imaam leeyahay iyo culimaudiin hadduu leeyahay iyo waxgarad hadduu leeyahay waxaan rabnaa in nagala qabto dadkaas siyaasiyiinta ah ee codka u maleeyaan in lagu heli kara nin qabqabla ah tookadii horena nagu xasan sheekh maxamuud wuxuu ahay ninkii nagu xalaaleeyey maamulka axmed madoobe shirka etoobiya lagu qaban jira etoobiya accord ninkii nagu xalaaleeyey xasan sheekh maxamuud u ahaa xasan sheekh maxamuud kama yeelayno wasiir faaraxa ka dambeeyey kama yeelayno aadan cabdulle cismaana laga yeeli lahaaye haddii wasiira wax samay kara la dhahayo aadan cabdulle cismaana laga yeeli lahay annagu wasiir faarax waxba uma haysanno waxaa wax u haysanaa xasan sheekh maxamuud annagu beesha ay ka soo jeedaan waxa uu sheegaa inay nagala qabto nimanka siyaasiyiinta ah ee danahooda iyo danahooda raadiyo oo waxba shacab iyo soomaalinimo iyo deegaannimo iyo dowladnimo mid ay rabaan ma jirto fiqi maalinka axmed madoobe oo macnaha ciyaalka oo soo aruursaday gurigu iskugu keensaday oo warqado in loo qoray la dhahay axmed madoobe u codeeye dheh fiqiyaa meesha fadhiyey fiqi nimankii oo qolada raaskeebooni su-aalay weydiisay waxaa la dhahay shirka hobye ka warran allah markaasuu wuxuu ku yidhi shirkii hobye iyo dowladda galmudug wuxuu yidhi qabyo waay galmudug hadday qabyo tahay maxaa inta kasoo doontaa la dhahay bal ceebta gaarta fiir horta ninkaas marka ilmaada nimanka siyaasiyiinta ah ee beelaha hawiye ka soo jeedo jid khaldan ayay ku socdaan sumcadda ee lahaayeenna waxay ku dileen kismaaye hal shayayna ku badbaadi karaan hadalkayga caawa meel hala dhigo waxay ku badbaadi karaan in si deg deg ay raaligelin ugu bixiyaan xaalna ay ka bixiyaan arrimaha dadka yidhi axmed madoobe caano ku shubaynaa annagu dadka jubbooyinka degan waxay noola mid tahay dad helikobtar soo qaatay oo na duqeeyo macnaha dadka deegaanka ah diyaarad cirka inay soo qaatay cirka ka duqeeyo noola mid tahay marka in adeer waxaa kugu soo gaabanayaa beeshaas hadday nabadoon leedahay hadday ugaas leedahay iyo hadday culimo udiin leedahay waxaa ka rajaynaynaa inay naga qaban doonaan siyaasiyiintaas annagu naxaqinayaan ee rabaan in annaga godka nagu ridaan waxaa ka sugaynaa beelaha ay ka soo jeedaan oo waxgarad leh aqoon-yahan leh culimo udiin leh nabadoon leh imaam leh ugaas leh ayaa ka sugaynaya in wax naga qabtaan aad iyo aada u mahadsan tahay su-aashaas aada u caddaysay ugu dambeyn waxaan rabnaa wax xilib dambena way tahay dadkana way intooda badan way jiifaan ugu dambeyn waxaan rabnaa dadka deegaankaasi ka soo jeeda
hadday ahaan lahaayeen beelo indheer garadkooda qurba joogtooda siyaasiyiintooda dhalinyaradan hadda maxaa lahay u kacday inay deegaankooda u dagaalamaan iyo dhammaan dadka maxaa lahay to deegaankaasi kasoo jeeda maxaad ugu baaqi lahayd oo aad maadaama aad tahay nin siyaasi oo da'yar ah oo maxaa lahay to firfircoon in deegaankiisa waxa loo qabta aaminsan aad tahay dadka maxaad ula wadaagi lahayd dadka deegaanadaasi kasoo jeeda inaad horta dadka deegaankaas deganaaye waaga hore dadka deganaaye oo ilaa abtinaaw horta dad qabiil laguma xisaabtami jirin meeshaas anigu hadda waxaa ka soo jeedaa beelaha wii waxaa ina sheeqaal ah aniga iyo ninka direed ee bimaalka ah iyo gaaljecel iyo cooromale iyo baajuun iyo jareer iyo dadka gobolka gado degan kulligeenna waxaa naga dhexeeyey xeerar iyo dhaqannaan lahaa jirin oo noo gooni ah xeerarkeenna iyo dhaqamada aan annagu lahaynay 10 sane oo ninkan meesha joogo qadkoo ka saaray dadka deegaanka ah dadka bini'aadanka meelaha lagala dagaalamo waxa u horeeya dhaqanka dadka mar haddii dhaqanka lagala dagaalamo dadkaas waxay u dhow yihiin inay baabaanay u dhow yihiin dadka deegaanka waxaa ugu baaqaa inay u midoobaan dulmiga ka jira kismaaye iyo cadaalad darrada ka jirto iyo duladnimada ka jirto midooga weli aan midoobayna ma aha midaas soomaaliya u midoobayne soomaaliya aan badbaadinayna dadka jubbooyinka iyo gada degan haddii aan midoowno waxaa badbaadi karnaa soomaaliya waxaa badbaadi karnaa badda soomaaliya lagu haysta ayaa badbaadi karnaa dhulka soomaaliya ayaa badbaadi karnaa maalin walba diyaaradaha kenyaatiga dhulka gada gobolka gada la dhaho shalay u dambaysa geelaa lagu laayay maalin walba xoolaha iyo dadkaa lagu laayaa diyaaradaa duqayso hormuud hadday tahay waa la baabi'iyey oo dadka deegaanka ah ee soonaha xaduudka degan ee dhanba way baabi'een marka dadka deegaanka labada jubbi iyo gada degan waxaa ugu baaqaa inaan badbaadano soomaaliya dhulka ee ku lehed koonfurta soomaaliya inaan anagu badbaadano waxaa laga sugaa dadka deegaanka deganaa laga sugaya axmed madoobe iyo xulufadiisa lagama sugaayo axmed madoobe iyo xulufadiisa deegaan ma ahan dhulkan danka ma lehen badda haddii la qaata shaqo kuma lah haddii dhulka la guba shaqo kuma lah axmed iyo xulufadiisa qandaraasay soo qaateen qandaraaskoodana waa u dhammaaday laakiin dad badan aaminsan in axmed madoobe deegaankaas uu kasoo jeedo oo maxaa la dhahaa rag isaga la socday maamulkiisa iyo rag badan ka mid ah deegaankaas kasoo jeedaanoo markan adigoo kale saas u hadlayso in raggaas aad dulminaysa dad u arko maxaad ka leedahay adeer axmed madoobe wuxuu ku dhashay gobolka la dhaha qorrixiyuu ku dhashay qabda dahre maamulka lagugu sheegay axmed meesha u joogana macnaha daraawiish wuxuu ku dhashay nimanka harta daarood nimanka ka joogaan waxay ku dhasheen gobolka la yidhaaha doollee ku dhasheen wardheer iyo walwaaley ku dhasheen nimanka axmed ka soo jeedan waxay ku dhasheen kilirka shanaad iyo n f d kasoo kala jeedaan ogaadeenkii nala deganaayay deegaanka annagu macnaha isku dhaqankii ahaynay isku deegaankeena dadka waa ka naqaanaa colna ma nihin ogaadeenka deegaanka qabiilka deegaankaas ka soo jeedaya annagu dad colaa ma nihin ilaa waqti xaadarkan waa isku fiicannahay isku dhaqanaan nahay looda afmadow degan waxay timaadaa ilaa jimaam iyo turdhee timaadaa looda macnaha jimaamo degan iyo jilib deganna afmadow iyo badhaadhee tagtaa annagu dadka badhaadhe afmadow degan dadaa colnahay maaha dad xumaan naga dhexaysana maaha waana isnaqaanaa dadka axmed dadka oo leeyahay waa ka soo jeedaa hal qof oo xil ka haysa kismaayo ma jirto hal shaqsi oo xil ka haya ma jiro hal shaqsi oo dadka deegaanka ah oo dembi ka galana ma jiro marka in adeer xaalka dadka deegaanka degan waa is wacnaa maalin walbaa wada hadalnaa ilmihii aan iskula dhalanay kismaayo oo banoniga asal dheeli jirno
oo qabaa'ilkaas ka soo jeedaan waa isku fiicannahay ma ahan annaga kuma colaadanayna axmed ee isku faamiliyin kuma colaadanayna axmed waa nin ka yimid dowladda etoobiya reer waama isla nahay waay marka dhaqana naga dhexeeyo dhaqanka naga dhexey jirina weli wuu naga dhexey doonaa intaasaana kuugu soo koobaa brother aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan barnaamijkan qadka nagula jiray siyaasiga da'da yar xaajo xasan nuur oo hadda ku sugan magaalada kismaayo isagoo in badan looga hadlaya xaaladda maamulka midoobe iyo aragtida uu ka aaminsan yahay dadka deegaanka uu isaga hormuudka u yahay aragtida ay maamulkaasi ka aaminsan yihiin iyo xaalada iyo dadkaas wax la gudboona barnaamijkeena maxaa dhahay talo gorfee gacalo barnaamijkaasi la wadaagayay aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijkeena daawanaysay siyaasiga adigana aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan ku rajeynaya inaad kismaayo ku ammaanshid hal wax yar magaciisow gacalow dardaaran yaraa rabaa inaan halkan ka dhiibo aad iyo aad soo dhowow fadal waxaan rabaa inaan la dardaarmo qolada hadda xilka hayso oo maxaa cabdilaahi farmaajo xasan cali kheyr ee madaxda u yihiin si fiican iyo baarlamaanka soomaaliya oo tookada horena ka hadleen dowladdii hore oo tan ka horreysana baarlamaankeeda ka hadleen haddana macnaha qoladaana oo maamulka soomaaliya maanta heesta ayaa waxaa rabaa inaan baaq u diro waxaan leeyahay maamulka jabhaddaas xasan sheekh maxamuud wuxuu u ansixiyey xilkaa ku soo laawati maxaa cabdillah farmaajo xasan cali kheyre waxaa rabaa inaan u sheego hadday is yidhaahdiin xilkaa ku soo laabanaysiin ee dastuurka axmed madoobe maamulku dhisa haddee isdhahan ayagana horta xilka kuma soo laaban doonaan si fiican waxaana daliil u ah maamulka ka horreeyey oo axmed u ansixiyey inay xilka ku soo laabtaan taasay horta ku cimri qaadi karaan annagu sharafaa u haynaa qoladay axmed laguma caana shuba kara tiri dadka eelaboorka ka celisay dowladda soomaaliya sharaf weyna u haynaa abaalay nagu leedahay dadka jubbooyinka dowladdaa jecelnahay dowladdaa taageersannahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo qof walboo dowladda soomaaliya ka shaqayso inta aanan ahaynin dadka siyaasiyiinta ah ee danaha gaarka aan lahayn aad baa ugu mahad celinayna marka waxaan rabaa jidkii xasan sheekh maxamuud ku sirmay maxaa cabdillah farmaajo waxaa lee iska ilaali waxaa leeyahay maxamed cabdillah farmaajo haddii aa is tiraahdo dastuurka axmed madoobe dadka deegaankaas wax ugu dhis nabad kuma dhici doonto adigana taariikh madoobaa ku geli doontaa sidii dowladdii kaa horreysay ayaa taariikh madow ku geli doontaa marka waxaa ugu baaqaa inay ka digtoonaadaan jidkii xasan sheekh maxamuud maray inay dowladdii ka horreysay jidkay martay inay ka digtoonaadaana ugu baaqaya aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rajeynayaa inuu baaqaada gaari doono waqti dambe noo noqotay akhyaarta aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada nala soo bilaawatay ilaa hadda nala dhamaysay inta gadaal naga soo dhammaantiin waa mahadsantihiin yaase xaajo xasan nuur adigana aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rajeynaynaa barnaamijyo kale inaan qaban doono xilli fiican oo munaasabo dadkana ay soo wada jeedaan caawa aad baan u daahnay aad iyo aad u mahadsantahay